عاوة هبين تاريخي ومعنى وين إنه سمينية يضو وقتي يبضن كهر دولة سوماليات ديوان قلين تيضو شرعية إن عد بحنتو إني محوها عاوة دولة قبلاتك وغاية بري سوماليا وأينو لسني بغنا قالي وقت الدو إني عاوة لكوسته وهاوشاسو إنو كبيغانتو guushii hore waa fursad aad iyo aad u qiimo badan oo runtii wax badan isku aadayaan oo deegaankan uu helayo iyo shacabkiisa qiimaha badan leh marka insha Allah diiwaangelinta codbixiyayaashu codbixintu waxay inoo bilaabmi doontaa berrito iyadoo ka bilaabanaysa magaaladan caasimadda dawladda waqooyi bari Soomaaliya doorashooyinkan toosan waa qaynuun iyo xuquuq dastuuriya oo qofka Soomaaliyeed leeyahay waxayna ku taallaa dastuurka dawladda federaalka iyo dastuurka dawlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya labadaba way ku taallaa in la daadajiyo doorashooyinka toosan oo dadka Soomaaliyeed ay wada gaadho muxuu ahaa hoos u gaadho halkaasna matalaad dadka lagu matalo cadaalad iyo haddii ilaahidankeeda leeyahay dawlad dhis mujtamaca ay hoos u gaadho in badan baa ka soo hadashay horaantay ragna waa igaga dambeeyaa madaxweynaha iga dambeeya marka fursadda qiimaha badan leh sidii la sheegay waa in laga faa'iidaystaa waa in shacabku isdiiwaan geliyaa wax badan baa ku xirma tiradaada baa la arkayaa wax qaybta qorshaha baa la arkayaa heerka aad tahay statistics-ka dalka oo dhan baahidaada haday tahay mid school iyo haday tahay mid muxuu ahaa caafimaad iyo nooc kastoo ay tahay meelaha laga eegto weeye marka waxaan idin rajaynayaa guul iyadoo la isdiiwaan geliyo iyadoo muxuu ahaa haddii ilaahidankeeda leeyahay marxaladan aan la beeldarayn aynu muxuu ahaa u kacno waqti siino waxyaabaha ay leedahay oo duruufaha iska adag oo dabeecaddan dishibliinkaayoo dadka Soomaaliyeed aysan aad u lahayn oo safka la galo laakiin ummadaha kale waqti dheer ay ku jiraan in loo dulqaato marka haddeer Soomaalidu kursi fadhiga waa jeceshahay laakiin taagnida waa nacabtahay adduunka kursi laguma shaqeeyo xafiisyada xataa kuma shaqeeyaan taagni baa lagu shaqeeyaa waxa la yiraahdaa caafimaadkay ka mid tahay dhabarkaaga intii aad kursi ku fadhidiba waa waxbaad u dhimaysaa laakiin intii aad taagan tahayba waxa weeye waa caafimaadkaagu waa ku kordhaa xataa marka aad iyo aad baan gudoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka heer qadan Saadiq Garaad u bogaadinayaa hawshan waa halkan keenay oo muxuu ahaa halkan hadda goboladii ugu horeeyay ee dalka steedyadii ugu horeeyay ay ka mid tahay arintan annaga ka wasaarad ahaan guddiga doorashooyinka iyo walow uu madax bannaan yahay wasaaraddu hoos yimaadaa laakiin waa guddi shaqadiisa xor ah u madax bannaan aan cidna ku faragelin haddii ilaahidankeeda leeyahay marka inaan anigoo jooga halkan in caawada furkiina ka dhaco berrina uu ka dhaco aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa garaadka waxaan idin rajaynayaa guulo badan oo isdaba jooga oo deegaankan dadkiisu uu ku gaaro iyo deegaankan uu gaaro inaad heli doontaan ilaahay wax wanaagsan baa idinka baryayaa aad iyo aad baa u mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu